saddex nin oo nin waa la wada waa wax ugu cusub taas waa ka gaabsan taas googa cadal wiilka qaawani qaylo dheeraa wiilka qaawan qaylo dheera wiilka qaawan qaylo dheera anigu waxay ila tahay xabadda fooqa markay ka baxdo way qaawan tahay wayna qaylo badan tahay marka wiilka qaawan qaylo dheera xabaddii oo socoto aanay tahay asalaamu calaykum saaxiibayaal soo dhawaada halkani waa bootaan iyo baratanka barbaarta garbeeg waxaa fadhiya asxaab aad igu qaaliya ugu horeeyo tacdiftaax dr xasan dr khaalid iyo dr firdowsa waxaa meesha u fadhinaa waxay tahay inaan isweydiino hal xiraalayaashii iyo googayaashii dadkana way isticmaalaan maadaama dadka Soomaaliyeed yihiin dad fikira mar walbana su'aalo sarbeeban isweydiiya asxaabteeda aniga casuuman waxaan weydiin doonaa googa laba tartan sameey doonaa markooda waxaan ku tartami doonaa tartan su'aal weydiin oo googa isweydiinayno tartanka labaadna wuxuu noqon doonaa ciyaari doono caagada waxaan ku bilaabayaa googaha ugu horeeya intaana weydiin ka hor horta waxaan leeyahay tarcadiftaax soo dhawow waa dhawahay Torres Samira iyo inta kale dhakhaatiirta ciyaarahan waxa waaye ciyaalnimada markay aan jirnay googa cadala iyo hadallada madaxanay sarbeebta marka bal noo bilow waxaan ka helnaa heleynaa adigana soo dhawow Torres aad iyo aad u mahadsan tahay waa soo dhaweynayaa barnaamijkan maxaa la dhahaa barbaarta bootaan aad iyo aadna u mahadsan tahay dr khaalid soo dhawow boqortooy دكتور ما سنتهي برنامج كان كله واحد واحد دبا ودمنا وعلنا حال يراد عرور نمت كانوا نصح سنة مركا أسودو ودو saaxiibta qaaliya galaas midkaygii dr firdaws socod wanaag soo dhawow ay xishoodsiis kasto waa dhawahay waa mahadsan tahay Samiro barnaamijkan waxaa waa barnaamij loo baahnaa waaye aad u mahadsan tahay waa ku dhawahay insha Allah saaxiibin kasto jeclaado in furina ku aragno laakiin marar kale ayaa ka badan waxaa bilaabaynaa su'aalaha googaha tartan noqon doontaa dhibcaha lagu kala qaadan doonaa maadaama dhibcaha lagu kala qaadanayo su'aasha kooda waxaa weydiinaya tartax su'aasha waxay tahay isku day doctore maadaama waxaan fikir ay yihiin waxaa laga yaabaa Soomaalidu gobollo kala duwan ay degtaa macnaha inaan ku kala duwannahay googaha sida caadiga ah qof gobollada dhexe ka yimid qofka xamar ku nool qof koonfur ka yimid qofka waqooyi ka yimid intanadaan isugu jirnaa macnaha oo qof walba gobol gaar ah koonfur waqooyi gobollo dhexe iyo muqdisho asxaabteeda maadaama intaasba ka kooban yihiin muhiimadu maaha qofka hadduu qaldo su'aasha inuu soo xabo aqoonin dad wax bartay oo aqoon leh oo haldoora oo fikir badan ayaa ila fadhiya ta koowaad waxaan weydiinaa turcatax tor waxaan ka rabaa inay sheegto ma maqashay weligaa maxayse kula tahay garasweyne gadoon lana soo gedi waa gadoon haddaan isku dayo jawaabteeda waxa waaye nafta waa xasan maxay kula tahay adiga waa ku raacsanaa sidoo ku raacsanaa tor qaaliday حيقري الرك أيه فردوسة waa ku raacsanaa sababtoo ah qofku mar haday nafta ka baxdo waxa waaye jawaabtaas waxay noqotay jawaab la isku wada raacay waana si saxda ah cabditaxoo saxay su-aasha kale waxaa weydiinayaa xasan su-aashan waxay tahay tan iyo meel walba xaarku daba yaala xaarku daba socda teer iyo meel walba marka gobollada la joogo dadku waxay dhihi jireen teer iyo xamar xaarku daba yaala laakiin hadda anaga xamar anaga joogno mugta waxaan leenahay teer iyo meel walba xaarku daba yaala maxay kula tahay su-aasha jawaabteeda su-aashaas jawaabteeda ma garanayo okay ma aqaan aqoontay kumid tahay mamase xasan dr khaalid ay waxa maqli jiray tuka cambaar leh waxsaas marka waxa la yiraahdaa yani qofkaas waa qof muddo ka socon buu noqday marka ma aqaan waxa ku tilmaamtay su-aasha waxay noqotay su'aal la yaab leh okay socod wanaag soo dhawow maxay kula tahay hal mar igu celi tan iyo meel walba xaarku daba yaala waxaan u malaynayaa waa beenta okay kama dambe su-aasha wax kusoo laabatay cabdifitaax oo marka hore hal dhibic haystay hay'adda isku dayo tan iyo meel walba xaarku daba yaala aniga waxaan isleeyahay ceebta amay tahay ceebta kaama goodo mana kaa hartee okay asxaabta aad u kala duwan ku bixiyey waxaan rajaynayaa asxaabta jawaabta saxayna sheegi doontiin haddii aad ku raacsantahin asxaabta qaar jawaabtooda inaan nala wadaagi doonto su-aasha kale waxay tahay waxaa iska leh turqaali su-aashaad waxay tahay hal madow hawd ku miriqday weligaa ma maqashay hal madow hawd ku miriqday horta horey muu maqal laakiin haddaan isku dayo waxaan islahay biriqda miya okay
si fiican maasha allah tarqaalid ayay firdaws maxay kula tahay Ana waxay la tahay injirta. injirta okay cabditaax maxay kula tahay والله عجيب كونه هالمدو هوك هاي هالمدو هاي hawdku miriqday هوك مرقدي والله تورسada la qabaa ida barnaamijkaas ku waxa isku soo beegayihiin injirta tinta ku birqasa saasayta okay xasan waa ku raacsanahay okay jawaabta sidii saxanta hadii kalaba adinka ayar ma inaan la wadaagtiin su'aasha kale waxa iska leh firdawsa firdaws su'aashan waxay tahay hal cad hortaada kuftay Hal cad hortaada ku kuftay. Waxaan u malaynayaa waa candhuufta. candhuufta Ha. okay cabditaax maxay kula tahay hal cad hee hortaada ku kuftay waxay dhahday candhuufta waa والله عجيب أنا أهم waxay ila tahay karfantii ama tahay meedka qabriga markii la geliyo saas ila tahay maasha allah xasan hal cad hortaada ku kuftay bisha okay xasan waa siyahay tarqaalid maxay kula tahay jawaab uma hayo midaas tarqaalid waxaan u malaynayaa erey goboleed inaan kula imaano maanta naga raali noqo okay su'aashaan firdaws waa weydiiyey qof walba hal su'aal la weydiiyey waxaan kusoo bilaabayaa mar kale cabditaax su'aashaan waxay tahay googa cadal wiilka qaawani qaylo dheeraa wiilka qaawan qaylo dheera wiilka qaawan qaylo dheera aniga waxay ila tahay xabadda fooqa markay ka baxdo way qaawan tahay wayna qaylo badan tahay marka wiilka qaawan qaylo dheera xabaddii oo socoto anay tahay maasha allah tar cabditaax waa mahadsan yahay jawaabtiisa ayay tar xasan cajiib waay wiilka qaawan qaylo dheera haddii aan laho waxay noqon kartaa umushay noqon kartaa wiilka qaawan qaylo dheeraa markii aad fiiriso siyaabo badan waxa u dhowaan isleeyahan waa xabadda cidaa diftaaxan ku raacsan ayay firdaws adigana maxay kula tahay Aniga waxaan ku raacay doctorka xabadda ila tahay. okay su'aasha dil isku raacay su'aasha hore ka dhowdahay inkastoo jawaab ka duwan oo tar xasan noo sheegay gadaalan ka sheegi doono qof walba inta jawaab uu saxay su'aashan waxa iska leh su'aashaadu waxay tahay saddex nin oo nin waa la wada waa wax ugu cusub taas waa ka gaabsan taas xasan oo maasiya oo dhaadash ka gaabsaday okay tarqaalida markaan sugayna kolley galabta waa lehayaa umaleynaya saddex nin oo nin waalan wada garanayo kolley galabta maskaxdeeda waa fadhida okay markaana tar firdawsa weydiinayna ay firdawsa Saddex nin oo nin waalan wado waxay la tahay haddaad dib u laabto marka saddexda dhagax la shiday digsiga la saaro. Saas baan u malaynayaa. Saddex dhagax waa moogtahay digsiga oo la saaray dadkii baadiyaha xasuusan kare dadka ma yaqaan. okay waxay dhahday dheriga iyo dhardhaarta macnaha saddexda dhagax saasay ila tahay ku dhahday okay cabditaax adiga maxay kula tahay sidoo kale aniga saasay ila tahay because saddex dhagax markii la dhigo dherigan la saaro waxa lagu kariyo saddexdaas dhagax waxa hogaaminayo dheri karkarsan oo marka dheriga waalinaya la dhahayna okay ku maasantii jawaabihiina markaa waxaan weydiinayaa su'aasha doctor Khalid ayay maraysaa qof walba su'aal laba su'aal uu lahay faa'iidaysi marka laga reebo Khalid su'aashaadu waxay tahay askar safan taliye dhex boodboodayo doctor waxaan u malaynayaa galabta waa inaan karbaasho uga soo talagashay askar safan taliye boodboodaya dhex boodboodaya markaan fiiriyo waxaan isleeyahay carabka inuu yahay carabka doctor Khalid aad u maasiya jawaabuna siiyey bal fikir ka duwan raadinayna ay firdaws maxay kula tahay Doctor Khalid aa ku raacay aniga carabka waa raacday cabditaax maxay kula tahay waa ciidanka waxaan dhahna askarta ilkihii waaye carabkana waxaa waaye taliye marka waa macquul jawaab saxan waa isleeyahay aniga waxaan isleeyahay boqorka shinnida waa isleeyahay okay xasan uu ka jawaab duwan yahay Khalidna uu ku maasiya jawaabta uu bixiyey su'aasha waxa iska leh firdaws su'aashaadu waxay tahay xagga xeex
حق حق حارين بيا حق حابي علول ولي مغش جو جارت yes cadale حق حاح حق حوح حق حارين بيا حق حابي علول maroodiga markuu dhalo waaye مروزيقة مركو دولو ميل حاح ميل حوح ميل اوكي جوابت الشباب كدون ني جرتين كلا يا wallaahi waa horta cajiib waa kowdhe laakiin inkastoo aan arkin maroodi dhalaayo su-aashan waxaa waaye ma ku fududaan karo waxa waaye waxa waaye haddaan isku dayo neefku markuu dhalo waa neefku aadaba aad waa boodboodaya soo ma عداو لا نفس كست مركو دلو واي صوتو مركو دلان وحو بدبودايان اي در قالد حاتري حق حوح حق حاح حارم بيا isleeyahay masafta markii wax lagu haadinayo waad aragtay marba dhinac bay wax uga daadan karaa aakhirna wuxuu ku dambeynaysaa waxaa waaye waa xaaba iyo dab in la saaro marka waxaan isleeyahay masafta inaad wixii ku jira مسافت اما حارينك ما لبدا سو اوكي ددك قار مسافت ددك قار حارين دايان خالد uu ku maasay jawaabtiisa اوكي ادم su'aaliina dhamaadeen aan maleynaya qof walba laba su'aal sidee su'aal inaan idin weydiiyo kala duwan horta jawaabaha su'aalahan intooda badan waa ka sheegteen oo dhexdiina ka soo muuqdeen سؤال أسوأ نكسنا وجوابتين ولا كل جواب بدناي وأنا لكن اللي بعد بدني هاي قفل بس كضي يفكر ذا نكسنا نوصل جيسين سؤال كويس سويدين حياة جرسوين قدون لنسوا قدوا وحنا أنا ونفتح جوابتنا وحشة قاعد تفتح هل نبيع ماس كويسة سؤال اللي بعده حياة تن إيميل والبحر كتبية له سؤال جوابتي هذا وأقول بعدين وحبات سود ويسين فكر ذا في عنا شكتين لكن جوابت صح وحياة هاي هوس كقفك كاسة يا أو مرة والبقفك ده صعدة سؤال تحدث حياة هالمذوب فوتكم رقبة كاس waxa way jawaab saxda ah intii waana sheegtay oo wada raacdeen laakiin jawaabteedu mid wada xasheeday farduusa su'aasha afraad waxay ahayd hal cad markaad ka soo waa ka jawaabteen oo xadadeen waa cambuus jawaab saxda waxay tahay cambuusta waxaana sheegtay farduusa meesha waxay ku wataa laba dhibcood su'aasha shanaad waxay ahayd wiilka qaawani qaylo dheera jawaab qurux badan ah bixiseen oo fikrado kala duwan loo fahmi karo kan muluq dhashay loo fahmi karo waxyaabo kale laakiin jawaabta saxda waxay tahay xabadu markay ka dhex baxdo fooqa way qaawan tahay wayna qaylo dheer tahay jawaabtaasna waxaa sheegay Cabdiftaax meeshan waxaa bareejo ah labo Firdaws iyo Cabdiftaax aragna qaad iyo Xasan waxay lixad waxay ahayd saddex nin oo nin waa la wada jawaabta saxda waxay tahay dhariga iyo dhardhaarta macnaha waa saddexda dhagax iyo dhariga la saaro ama digsiga laakiin waxa la yaab ah jawaabii qofta inay aruursato macnaha saaxiibay maskaxdan iyo sidee ku dhacday horta inaad su'aalaha saddex dhanka ka jawaabto maadaama aa weli idinka yarahay carruurnimada idinkaga dambeeyey taasaa sabab u ahayd okay tarasida maasanta wixii baadiyaha ma kusoo korto kusoo barbaartay sanaa kula soo ekaan okay Firdaws waxay dhahday sababtu waxay tahay tiri maadaama aan ka yarahay carruurnimada inkaga dambeeyay saasa su'aalaha saddex u gartay su'aashii toddobaad oo gudbaynaa su'aashii toddobaad waxay ahayd xagga xaax xagga xuux xagga xaarin biya xagga xaab iyo calool horta su'aasha jawaabteeda waa soo dhaweysay wuxuu dhahay waa neefku markuu dhalo Cabdiftaax wuxuu dhahay waa masafta Firdawsna waxay dhahday waa maroodiga markuu dhalo su'aashan xoogaa dadku isku khilaafaan laakiin almost waxa la maroodiga waxa ka cabsi badan dhurwaaga marka waxa la dhurwaaga markuu dhalo dhurwaaga jooga macnaha xagga xuux ilmihiisa yaa fadhiya macnaha xagga xaarin biya xagga xaab iyo calool waa wixii la socday ibidii iyo wixii kale iyo biyi la socday jawaabtu waa sidaas Firdaws marka jawaabtan dhibceeda ma ku siinayno maadaama maroodi aad dhaaday dhurwaaga ay tahay laakiin waa soo dhaweysay tii afraad naga qaadan rab oo ku maasan tahay su'aasha jawaabtu waxay ahayd askar safan taliye dhex badbooday jawaabta saxda waxaan rajaynayaa inaad fahmaysid ayna tahay carabka jawaabtaasna waxaa sax u sheegay Turqaali oo ah halka su'aal oo heltorka loo sabciyo maadaama waa laxbo oo nagu soo bareejiyay tiimkii labadii sax watay xasan aad u maasan yahay
fikrado badan oo wanaagsan aan ugu soo kordhisay maxaad dareemaysaa cabdifatax waxaan dareemaa waayo maya xagga ciyaarta markaan usoo jeesto waxaan umaleynaa ina anigii aan ahay loodka labaad inaan ahay lugta labaad ku jiro soo marka intaan kale waa hal iyo ewer iyo wataan marka waxaan leeyahay ilaa hadda xogaa inaan maya hadallada soomaaliya leh oo hadallada googla iyo maaragtay googa ahaa googa iyo cadala iyo inay weli ugu dambeyso aan dhaqankii aan dib ugu hayo oo weli aan xasuustii ugu gocanayso marka marba haddaa lugta labaad ku jiro waxaan umaleynaa inaan labada kale ka fiicanahay inkastoo tooreesada ay kusoo kortay ay kusoo barbaarto umaleynaya geyaana kusoo noqotay xagga baadiyaha marka waxaa waaye halaasay iga dambeysaa maahane waa roonaa dhaqanka waa hayaa weli aad u mahadsan yahay cabdifatax waxaan isleeyahay horta way fiicantao wax badan aa lakala faa'iiday Torres waa mahadsantahay Torres Samira mar walba oo arrimaha noocan kulli mar walba waxbaa ziyaadayo kullama su'aal ay timaado jawaabaad ma imaanayso jawaabuhu waa kala duwanaadeen laakiin mar walba oo jawaab saxda waa la arki doonaa aadna waa mahadsantahay aad u mahadsan tahay hay tarqani galabta horta waxaa u laabanay waxaan oran karaa 25 sano ka hor ku dhawaad wagarad Soomaa marka gogoleysigana waa horta wax wanaagsan waa dhaqankeeni waa soo jireenkeeni inaan dib u xasuusano xaliiraan nooleeno waa muhiim marka waa soo dhaweynaya waxaana ku bogaadinayaa inaan sii wadno kulamasaan oo kale ah waan isoo adkeyn doonaa tarqani waa isoo adkeynaya ayuu dhahay Khalid aan la kaftan Khalid wuxuu dhahay waxaan soo xasuustay 25 sano ka hor Khalid hadda wuxuu xaqiijiyay 25 sano inuu jiro soo 25 sano Khalid macquul ma noqoto macquul ma noqon karto macnaa okay Torres adiga shay la tagway ma oo yaraantii meeshana ana yaraantii meesha how come okay marka shay la tasoo ka hor u dhaad doctor waxa leeyahay yaa lagu fogaanin doctor maxaa leedahay kale galabta oo tal gashan marka mushkilad male waxu kala raxili okay kama dambeys fikirkeeda iyo waxay u aragto sida u aragto Firdaws ayaa weydiinaya tartanka guuleysiis ayaa noqotay 3 su'aal ayaa ka jawaabtay maxaa ka dareemaysaa su'aalaha lagu weydiiyey su'aalaha kale oo ka jawaab weysay maxay kula tahay horta waa mahadsantahay Samiro saaxiib barnaamijkan barnaamij wanaagsan waaye inkastoo kedis aan nooga dhigtay dadka aniga iska hadlo si qaase haddana waxa waaye waxa u laabana dib wax xilli hore aan soo dhaafnay aadaan ugu faraxsanahay maadaama guuleystaha aan ahayne waxaan leeyahay miiga gooni ugama imaanine gobolkeena uun baan joogay yaraanimada ku adkeysanaya ilaa hadda marka barnaamijkan waxa waaye aad kuugu bogaadinaya qof aad uu waxa waaye fikrado cusub inay la imaato jecel tahay anagana waan dhiirigelinaysaa dadka qaar waxa laga yaabaa gabadhan maxay wajiga u xiratay inay dhahaan wajiga waxa u xirtay waligay video camera kama hadlin marka waxa waaye ugu qaata maybe maanta koo marka maybe next time ina waxa waaye anaka waji furan imaano laakiin waxa idin leeyahay dib ha loo laabto wixii caruurtaada bari bari lahayd ina maanta adiga si practice gareysid way ku fiican tahay maadaama dhaqankeeni ay tahay aad u mahadsantahay mar kale Dr. Samira okay asxaabtayda qaaliga aad u mahadsantihiin waqtigiina qaaliga ay soo horteen ama u soo horteen dadkiina si aan ula madadaaladno su'aalana aan isku weydiino waan kaga mahadcelinayaa waqtigiina qaaliga ah maanta meesha waxaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii ahay Botani Bartika Barbaarta ciwaankiisa ugu horeeyay kaasoo ahay tartanka su'aalaha googa iyo cadala wax yar Soomaalidu ma googaalaysan waxa aaminsanahay ilmaha Soomaaliyeed almost inay aad u sameeyaan ciyaartan googaha maxaa yeelay waa ciyaar maskaxeed waa hadallo maldahan waa hadallo sir ah oo qarsan oo u baahan jawaabtooda in la soo fogo waxaan rajeynayaa jawaabaha inay ku qanacdeen barnaamijkan quruxda badan waxaa noo duubay walaalkan Ibrahim walaal Deef aad u mahadsan yahay adinkana saaxiibayaal aad u mahadsantihiin sida wanaagsan ee barnaamijka ay kala qayb qaadateen barnaamijkan haddii aad ka heshaan oo aad share gareysaan oo aad dadka la wadaagtiin oo noqdo barnaamij si fiican loo daawado asagoo iyo kuwa ka sii fiicanba waan keeni doonaa doctor Sadan Sharaf ka soo furi doonaa